wali abantaa Soomaha ciwaanka sheekada marka aragtay waa xaqiiq waxay ka dhacday duleedka Muqdisho gaar ahaan deegaanka Garas Baaley sawirka ninkan ku muuqanaya waxa lagu magacaabaa Ismaaciil hadda waa baxsad waxa rabnaa in adigu ka qayb qaadatid booliiska Soomaaliya oo la gaarsiiyay kiiskana dadaal ayuu ku jiraa isagana iyo dabagal haddii aad aragtid waxa rabaa lambarka gaaban ee booliiska inaad la xiriirtid si ninkan aad u jeedaan gacanta loogu soo dhigo wallahi markii waxa uu sameeyay ee u baahan in bulshada loo soo bandhigo sawirkan ku muuqanaya bal eeg waa video yar waxa ilaalin doonaa sharafteeda xuquuqdeeda foolka yar ayaan wajiga ku furi doonaa waa Aisha oo 12 jir aad ay u yar tahay marka loo eego ka dumar ahaan adeerkeed hooyadeed qabay Soomaaliya hadda waxa la baxan abti oo kale adeerkeed oo hooyadeed qabay ayaa gabadhan yar muddo kufsanay kufsigii sidoo ugu hayay wuxuu sheegay haddii gabadhaas kufsiga ay sheegto inuu qoorta ka jari doono way cabsatay ugu dambeyn wax walba banaanka ay yimaadeen waa uu baxsaday isaga way cadeysay gabadha tani markii uu ku soo bilaabay kufsiga dabadeed markii la ogaadayna isagu Ismaaciil waa uu baxsaday maanta booliiska Soomaaliya baadi goob ayuu ku bilaabay gabadhu yar waxaan isku daynay inay hadasho way hadashay inkastoo muuqaalkeeda aan halkan u isticmaali doonin markay hadlayso waxaan rabaa qof ka mid ah ehelkeeda oo isagana ila hadlay in muuqaalkiisa halkan ay kugu baahiyo intaan gudaha u galin marka Soomaaliya waxay maraysaa adeerkii inuu kufsaday gabadh yareed ee 12 jirka ahayd si marka gabadhaas yar ay cadaalad u hesho waxaan ka codsanaa in aad ka qayb qaadatid muuqaalkan aragtida ninkan marka ugu horeysa aragtidna in booliiska Soomaaliya la xiriirtid gabadh adeerkayga dhalay waay gabadh adeerkayga dhalay ilma adeeraan nahay naagto oo adeerka uu dhintay Allah naxariistay marka naagtiisi ay waxay guursatay nin kale ilaa 2 caruur kale oo dhashay marka habartii waxay gadis khudaar iska shaqaysanaysa suuqa iska soo aadi jirtay marka gabadh suuqa soo raacday marka guriga joogtay asigna guriga joog jiray marka marka wuxuu ku sameeyay jiray gabadh markay soo baxdo oo asiga guriga uu joogo guriga dariska ay soo gali jirtay oo ugu yeeri jiray kaala wareey waa ku guriga ugu ma oo jiray ilmo u dir jiray waa loo wic jiray guriga uu ma jirtay gabadha okay marka gabadha adiga indoo shidi jiray oo waa waabin jiray oo jiray wallahi waa ku jarjaraa meedkaaga waxa la saana yeelaa iyo waa cabsi gali jiray marka gabadha habarteed la kaleeyay waa guriga wax joogo iyo 2 cunug oo yar yar ah iyo odaygii oo adeerka ahaa asiga oo hadda falkan uu geystay waay arinta marka dib dambe waxaan ku ogaa doonaa habartii oo waxay dhaaday gabadhii waxaan arkay oo dhaqankeedu nooc kala noqday oo habeenaa marka uu qaatay dheeday ay dhahday sa u garaacay aan marka aan yar shakiyay marka sarwaalkan kisiiyo oo aan islaadiya fiiri way iga diidiyo si kasta yeeliyo gabar dariska xataa ay maatay asla qabaniyo marka dharkaan ka dhigiyo aan fiiri ayaa waxaan arkay dhahday oo gabadhii oo meeshii waxba yaalin marka sheegan ku yiri oo si kasta aan hadlay sheegay markaas waxay tiri aabba wax saan yeelay aabahan waa adeerka hadda oo habartu u qabo okay habartii markii qeelayso adeerkii u tagtay maxaa sameysay adeerkii waa aniga ma intii guriga lagu jiro aniga ma uu dhadhaartay kadib uu baxsaday hadda meel uu joogayahay iyo meel uu sugayaa ma garanayn marka waxaan codsanaynaa inaan cadaalad aan helno gabadhiina cadaalad aan helno oo ninkaas meel uu joogo noo soo sheego taas rajaynaa Abdullahi